afar qodob baa jabhadan lagu asaasay. waa maxay? midnimo, mintid, isku tashi, allahu akbar iyo guul. intaas ku salaysnaa. macnaha saad la socotaan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay u halgamaysaa shacab Soomaaliyeed oo muslina oo la gumaysto. asaaskeedana wuxuu ku dhisan yahay diinta islaamka, waa xaqiiqo weeye. wuxuu kaloo ku dhisan yahay xaqa dadkaas ay u leeyihiin inay muxuu ahaa aayado ka tashadaan oo xaq adduunka isku wada raacsan yahay. qaramada midoobay oo qoray oo inay aayado ka tashadaan. maxaa kaloo la isku raacsan yahay? waa qof bini aadan ma gumaysan karo. dadka raba inay la gumaystaan waa dadka adduunka ugu faqirsan weeye, waa dadka adduunka ugu liita weeye. hataa dadka qaar gumaysiga lasoo maray waxbaa aqoon baa laga kororsanayey, hanti baa laga kororsanayey. dad ayagii tugsanaya 24 saac tugsanaya oo baryo u taagan, waxay hadday ku gumaystaan waa nasiib daro, waxaad ka faa'iideen walaba. saad la socotaan ujeedada marka halkan uu leeyahay waxaa weeyaan shacabka Soomaaliyeed ee dalka degan in heeryada gumaysiga laga qaado si hubaysan iyo si silmi ah iyo si siyaasadeed. intaba jabhadan way ku halgamaysaa. waad la socotaan calaamadeeda waxaa ku yaala qalin iyo qori. waxyaabaha aan dareemayno inay dhaliishu ka jirtay halgamadii hore wuxuu ahaa waxaa xoog yaraa siyaasadda dibadda, aad buu u xoog yaray. yani halgankii WSLF ay qaaday, yani Ethiopia waxay ku guuleysatay inay tiraahdo Somali Republic dowlad ah ayaa naga qaadanaysa dhul. xeerka caalamkuna muxuu leeyahay dowlad dhulka qaadan kara ma jirto. maxaa meesha ka baxay marka? shucuubtii dhulkaa lahayd ee Soomaaliyeed sheekadeedi waa laga bedelay. waxaa la yidhi Ethiopia Soomaaliya xad isku haysta. waxaa u weyn oo la qaaday siyaasadeeda markay la asaasay waxay ahayd inay caddayso waxa dagaalamaya inuu shacab dhulkaa iska leh oo sida xeerka caalamku ogol yahay inay aayado ka tashaan xaqi u leeyahay, inay dagaalamaan xaqi u leeyahay haddii la dulmiyo. runtii maanta way ku guuleysatay, waa la aqoonsan yahay meesha dulmi inuu ka dhacay, dadka inay dhibaataysiin waa la aqoonsan yahay. meel fiican bayna gaadhay. sheekadii ahayd Soomaaliya Ethiopia dhulka qaadanaysa waan burburinaa, iyada way dhamaatay. shacab dulman oo la gumaysto oo halkaa jooga weeye. walaalaheen Soomaaliyeed waa sax weeye, waan wada dhalanay, dhulka ayaga iska leh. Soomaali waxa weeye dhul Soomaaliyeed oo dhulka Soomaaliyeedna waxa weeye lama kala laha. Gaarisa la degi karaa, Jigjiga la degi karaa, Jabuuti baa la degi karaa, Hargeysa la degi karaa, Xamar baa la degi karaa. dhulka Soomaaliyeed waa ummad hal ah. socio economic factor baa isku xireeya, diin baa isku xireysa, waxaa isku xireeya dhalasha isku xireysa. waa dhaweyd baa nin su'aal weydiiyay Soomaalinimadu bal looga war maxay tahay Soomaalida yiri. Soomaalinimadu kalaab ma aha la galan ku niri. Soomaalinimadu kalaab ma aha. kalaabka waad ka ilo aan ka bixi kartaa. aniga haddaan si kasta Soomaaliga kama bixi karo, waa dhalasho weeye, waa dhalashadii dhiigaygii weeye. marka ma aha wax question ku jira. Soomaalinimo question kuma jirto. siyaasaddu meelo way mari kartaa oo maxay mari kartaa? waxaa weeyaan asaaska sharciga caalamka waxaa weeye dadka la gumaysto ayagaa laga rabaa inay codkooda u dhaqaaqaan, walaalahoodna inay kaalmeeyaan ba laga sugayaa. waa intaa keliya wey. intaa markaan ka gudbo waxaa weeyaan Soomaaliya hadda ka hor Dr. Rabi Allah naxariisto oo nin qoraa weyn ahayo philosopher weyn oo reer Jabuuti ahaa ayaa wuxuu yidhi inta qofka Soomaaliga uu qoriga sito Soomaalinimada way jirtaa. Ogaadenya jamaacada wadaniga xoreynta Ogaadenya intay jirtaan waxaan aaminsanahay xorriyad la doono waxaa kale oo qurux badan oo u baahan inaynu isla fahanno dhaadashada. qofka muxuu ku dhaadan karaa? qofku wuxuu ku dhaadan karaa wax asaga leeyahay. jamaacada wadaniga xoreynta Ogaadenya maanta waa jamaacada kaliya ama waa dadka kaliya ee Soomaaliyeed ee la oran karayo waxay u taagan yihiin aragtidooda iyo caqligooda iyo garashadooda waxay ka taagan tahay ama ka tarjumaysaa inay xoreeyaan ummad la bahdilay oo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii intaba la doonayay la faquuqo. waxaan markaa aan raacinayaa qof kasta oo Soomaaliya maanta daabiyad kasta ku nool laga soo gaaro yacdo ilaa iyo Kudhaa dadka jooga waxay ka cabanayaan xorriyad darro. qof kasta Soomaaliya ku leeyahay waa nala haystaa. wariyaa idin haysta. qofka waa in horta isweydiiyo cidda haysata. qof aan isaga maskaxdiisa aragtidiisa aanan xor u ahayn wax ma xorey karaya weeyaan. ujeedada waa maya. qofka doonaya inuu ka xoroobo Ethiopia imika siyaasiyiinta intooda badan waxay leeyihiin ama ay ka dhawaajinayaan inta badan Soomaaliyeed aad ba maskaxda dadka inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay aad uga dhawaajinayaan inay jiraan in la yiraahdo Gabre iyo Getajo iyo Girma iyo Balaayo dhan iyo Afakaado iyo
ay u taliyaan Soomaaliya dadkaasi yaa keenay Soomaaliya saan hore u sheegay yaa meeshaasi u xaarxaaray inuu ka taliyo waa dad isla Soomaaliya walaalayaal waxa weeyaan waxa labada runta isu sheegin been baa u qarsoon qofka Soomaaliya doonaya inuu xoroobo koow waxa ay inuu taageero war horta waxa la habeenkiina hoos baa loo hadlaa daraartina hareeraha la leeyahay war horta yaa jamhadda wadaniga oo xoreyn oo wax ina xoreyso doonayso waa inuu qofkiis weydiiyo waa jamhad kale maanta oo Soomaaliyeed oo geed iyada ay leedahay tala iyada ay leedahay arrin iyada ay leedahay ku socoto oo aan ogaadeenaya aan jamhaddan ahayn ee ma jirto aragtida kale saafay ummadda Soomaaliyeed ee dhiigooda iyo dheecaankooda Soomaali baabi'iyay ee qabyaalada ah taasina waxa weeyaan waa mid mar walba u baahan in loo yeesho il ama foojignaan dheeri ah anigu waxaan markaa ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa inay heeryada qoyan ee weliba heeryada qoyan iska dulqaado waa inay taageeraan jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya number 1 anigu wax falsafad yaran ka hadlaya oo ayaamahan aan suuqa uga sheekeeyaan intaan uga faa'iideysanaya xornimo doon baynu nahay ilaahayna waxa ka baryaa inuu ilaahayna siiyo isagana noo haya cid kale noo haysa ma ay jirto haddaba xorriyaddu waa maxay aan doonaynaa xorriyadda aan doonaynaa maxay tahay waxaan maqalnay gumaysiana qabsaday gumaysi markuuna qabsaday kabacdi wuu naga tegay parts of the Somalis waa ka tegay wuxuu xor baa tihiin are we really free no we are not manhin xor manhin waayo xornimada ba khalad baan la ka fahamsiin waxa gumaysi ah qof uu u taliyo qof bini aadami uu ku amar ku taagleeyo oo uu ku exercise gareeyo his powers san hayelin uu yahay qof bini aadam ah inta ku yaala even if he is your son or your brother is the same inuu ajnabi ahaado qasab maaha waxa xor ah oo xornimo ah qofka alle isaga aan loo dhaxay qofka ilaahay abuuray isaga aan loo dhaxay waa xor ah xornimada aan doonayna waa inay taas ahaataa xornimada aan doonayna waa inay taas ahaataa dadka degan gobolka Ogaadeenaya waa dad Soomaaliyeed magaca lagu dirirayo Ogaadeen waxa weeye waa magac hore loo yaqaanay oo qadiimi ah dadkuna way ogaadaan hadii magac kale la qaato maanta cid garanayso laakiin magacii qadiimiga ah hore qof walba inuu ku halgalo xasan fooq shil ku tagay xasan sheekh ku tagay jijiga waxa dhabarjo loo geeyay Soomaalida waxa ahayd magac xumo Soomaaliya loo geystay waxaana kulli aniga ka howlgali doonaa insha Allah in qofka dambe Soomaaliya madaxda ka noqon doona aqoon leh wadaniyad leh si la soo hubsado qofka meesha imanaya waa hadii qof walba ku yimaado baritu ka soo noqdo waxa weeye ceeb iyo sharaf darrad ku nooleysa waxa leeyahay jawaabta Ogaadeenaya hadalka shacabka gabaya hanoolan waxa leeyahay macnaha waa la socdaa halka marka la bilaabo kullu ma bilowda waa guulaysan doonta xaqii la ku dagaalamaysan si ay noo diiday dhamaantiinba siraaca inagii Itoobiya horta misa u soo jiray waa waligoodna sida Cabdiraxmaan u sheegay wuxuu ahaa waan ka adkayn markaan inagii iyaga noqono laakiin kolba shaydaan iyo jin u soo heeliya runtii ayaa jiri jiray qolan waxaa jirta kuwa u hiiliyay hor hadda dadku sheegin dawladaha u hiiliyay kuriya sagaalkii ninkii la odhan jiray mataqaanaa isbaan magan wuxuu yidhi xabasho waanu ka adagnahay haddayna masar la jirin marka ma u malaynaysaan inay waagaas ilaa intaa dagaalada cidii usoo hilinaysa xataa masaaridu inay ka mid ahay kuwa maanta biyaha ka xidhanayaan laanna kaniisadan orthodoxka ee Ethiopia meesha laga xukumo ee mataanaysay Ethiopia waa Qaahira marka orthodoxka qibdiga masriga ah iyo qibdiga Ethiopiaanka ee orthodoxka waa walaalo 9 hadda inoogu dambeeyay ayaan Qaahiro aan joognay ba waxaan marti qaaday nin qiimo badan oo aad halgamaa u ah Masri ah oo la yiraahdo Axmed Cali Fileefad waa nin qoraa ah
ninkii qoriyay buuggii ahaa mushkilata ogaden juskii hore soo saaray juskii dambe lacag iyo waxba aan waayay buu yidhi muuse weli soo bixin axmed cali filefel baa la yidhahda marka dadka etoobiya la dagaalamaya jabhadaheeni iyo eritriyiinta ayuu la aad dadkii gacanta u siidiyay ka mid ahaa marka axmed jaamacatu qaahira ayuu taariikhdu dhigaa waagaa marka isagoo ku cusub oo macallin taariikheed ah kuliyaddana uu ka yahay diin butrus qaali saa nooga sheekeynay butrus qaali baa kuliyadda diinka ahaa buuri butrus qaalina waa qibdi buu ah marka etoobiya la jira axmed cali filefelo marka ardaydii eritriyiinta iyo kuwii reer soomaaliyeed iyo dadkii caawinayo arkay oo yani etoobiya kasoo horjeeda markaasuu ii yeedhay buuri butrus qaali baa ii yeedhay wuxuu yidhi bu ihi adiga baaxid saqiir baa tahay macnihii hadda explorer tahay waxaa tahay waa nin cusub baa tahay etoobiya eritrea weligeed ka xoroobi mayso dhoon baadarabo haba isku lugoyni buu yidhi bu ihi oo waxba mataqaana arrintaa iska jooji 1993 ayay eritrea markay xornimada qaadanaysay yaa butrus qaalina wuxuu ahaa mataqaanaa guddoomiyihii jamciyadda qurbada ka dhexaysa UN-ka waa kii madaxda ka ah qolada nimad aniga saaxiibadii bay ahaayeenoo axmed cali filefel bay marti qaadeen marka butrus qaali oo UNT ana waa lasoo marti qaaday dabaaldegii xornimada ay qaadanaysay eritrea ayaa marka isugu nimid buuri butrus qaali baan u imid buuri marka waa salaamay markaan salaamay baan buuri ana baaxid saqiir hadalkii ana baaxid saqiir baan buuri markaasuu yidhi laa laa anta baaxid kabiir wallahi ana asbaxtu baaxid saqiir xaqiiqada waxay noqotay buuri adaa baaxid kabiir noqdee aniga ayaa baaxid saqiirkii noqonaya buuri maxaa yeelay taadi baa rumowday